bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono dadaalada xoogan ee ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro khilaafka waqtigan ka dhaxalulsan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dadaaladaasi waxaa horkacaya qaar ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan madaxweynayaasha maamul goboleedyada beesha caalamka dadaalkeeda meesha kama marna waa maxay doorka beesha caalamka ee kaga aadan khilaafka waqtigan ka jira Soomaaliya halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona warbixintan ayaana idinku soo koobi doona hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawade Mareykanka ayaa Farmaajo ku qasbay in uu ku taageero ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble qabashada shirka golaha wada tashiga qaran iyo dhameystirka doorashooyin lagu kalsoonaan karo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Mary Catherine V ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku wargelisay in uu joojiyo carqalada uu ku hayo dalka iyo xasaradaha uu u abuurayo sida joogtada ah waxa ay xustay in ay ku amartay in uu joojiyo ciidamada uu adeegsanayo arrimaha siyaasadda isla markaana kaliya taageero dadaalada uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ku saxayo hanaanka doorashooyinka dalka waxa maanta kala hadlay madaxweyne Farmaajo baahida degdega ah ee loo qabo in la joojiyo hadallada iyo ficilada xiisad abuurka ah iyo in ciidamadu dhexdhexaad noqdaan waxaan ku booriyay in uu ra'iisul wasaare Rooble ku taageero qabashada shirka golaha wada tashiga qaran iyo in si degdeg ah loo dhameystiro doorashooyin la isku haleyn karo ayay tiri V Mary Catherine V waxa ay sidoo kale xaqiijisay in Mareykanku si buuxda u garab taagan yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaana ay la xiriirtay Rooble si ay u muujiso taageerada Mareykanka ee ku aadan dadaaladiisa uu ku qabanayo kulanka golaha wada tashiga qaran si loo soco qaladaadka ka jira doorashada talaadadii dowladda Mareykanka ayaa si adag ugu hanjabtay kooxda Farmaajo ee carqalada ku ah nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya waxayna muujisay sida ay uga xuntahay isku daygii afgambi ee isniintii Farmaajo ku doonayay in uu ku burburiyo hay'adaha dawladda Ilhaan Cumar oo gabar Soomaali ah kana tirsan Congress-ka Mareykanka ayaa sidoo kale isla maalintaasi sheegtay in la joogo waqtigii uu meesha ka bixi lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo kaas oo waqtigiisa sharciga ahaa dhamaaday 10 bilood ka hor dalalka kale ee safiiradu ka joogaan Soomaaliya iyo dalalka Yurub ee daneeya siyaasadda dalka waxa inta badan taageereen qabsoomida shirka golaha wada tashiga qaran ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku baaqay iyo in ay sii socdaan wada tashiyada kale ee dhexmaraya saamilada siyaasadda ee muhiimka ah Farmaajo wuxuu si cad u diiday in la saxo qaladaadka ka jira doorashada oo ay ugu horeeyaan kumilanka siyaasadda ee xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka kuwaasi oo isaga iyo Fahad qorsheynayeen in ay u boobaan kuraasta golaha shacabka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble wuxuu isniintii damaca Farmaajo ku qeexay waa booba ama waa banada wuxuuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay u istaagaan difaaca dawladnimada haddaynu eegno markan doorka ee beesha caalamka ku leedahay khilaafka waqtigan ka dhex oogan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble beesha caalamka ayaa door weyn ka qaadan karta xaaladda siyaasadeed ee cakiran maadaama ay yihiin kuwa kaliya ee kaba miisaaniyadda Soomaaliya marka loo eego kaalinta bulshada rayidka ee khilaafka jira waxa uga haboon in ay galaan beesha caalamka oo sida ay shacabku qabaan samata bixin karta xilliga kala guurka oo uu dalku ku jiro durba jawaabaha ay ka bixiyeen khilaafka ayaa saameyn yeeshay maadaama ay taageereen shirkii uu ku baaqay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay isugu imaanayeen golaha wada tashiga qaran waana arinta koowaad oo cadaadiska ku kordhisay madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa kula jirta Villa Soomaaliya hadalka ay dhahaan saaxiibada Soomaaliya
waa mid u dhaqangeli kara sidii loo baahnaa. Aragtidaasi waxaa qaba Cabdifataax Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee dalka wax ku bartay, kaasoo sidoo kalena Farmaajo ku sifeeyay shakhsi ku fashilmay siyaasadda Soomaaliya. Nidaamka qaloocan ee hoggaanka waqtigiisu dhamaaday ayaa mid saamaxaya in talada dalka ay kaalin ku yeeshaan shisheeyaha, maadaama uu talo iyo waano ka diiday bulshada qaybaheeda kala duwan. Beesha caalamka ayaa 2 maalin gudaheed qaadaysay tallaabadii ugu habbooneed, iyagoo la kulmayay Farmaajo oo ay u wadaan fariin ah in uu baneeyo madaxtooyada, taas oo haddii uu ka biyo diido dhalin karta dagaal hor leh. waase arrin markaasi loo badinayo in uu yeelayo, maadaama inta ay doorashada ka dhaceyso ay u ballan qaadayaan xaqiijinta amnigiisa. khilaafkan culus ee ka dhex jira madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble soona shacbaxay toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa inta badan siyaasiyiinta mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ay yihiin kuwa ku dadaalaya sidii loo soo afjari lahaa. Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Cali Khayre, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Gudlaawe ayaa iyagu waxaa lagu eedeynayaa mushkilada ka soconaysa magaalada caasimadda ee Muqdisho in ay qayb ka yihiin, waxaase sidoo kale iyagu ku doodayaan in ay yihiin kuwa daneynaya in xal loo helo khilaafkan ka jira Soomaaliya. nuxurka wararka waxay 13 December bishan 2021 baahisay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed thumma wallahi iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre ee ka hor yimaadeen qorshe uu mucaaradku ku dhisi lahaa golo qaran kaas oo hor istaaga boobka doorashada. xilligaasi labaduba waxay ka baxeen dalka. xisbiga Himilo Qaran ee uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed ayaana si buuxda u taageeray hanaanka boobka oo xilligaasi ay inta badan xubnaha kale ee musharaxiinta ra'iisul wasaaraha ugu baaqayeen in uu tallaabo ka qaado gudiyada doorashooyinka. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu dhexda u xirtay sixitaanka qaladaadka ka jira doorashada, wuxuuna shaqada ka raacdiyay 7 xubnood oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka, halka fiid ee xilka gudoomiyenimo ka xayuubiyeen Maxamed Xasan Ciro oo ku milmay kooxda Farmaajo. tallaabadaasi Rooble u qaaday sixitaanka doorashada waxa ay sababtay in Farmaajo uu duulaan ku qaado xafiiska ra'iisul wasaaraha, isla markaana isku dayo in uu afgambi ku qabsado Muqdisho Isniintii. isku daygaasi fashilmay waxaa ka dhashay caro bulsho iyo gabood ciidan, waxaana caasimadda soo galay ciidan ka tirsan badbaado qaran kuwaasi oo fariisimo ka sameystay degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag. ha yeeshee mar kale Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre ayaa dadaal xoogan ku bixiyay sidii ciidamadan looga saari lahaa magaalada, waxayna kala dhantaaleen badbaado qaran kuwaasi oo ugu dambeyn ka baxay fariisimihii ay sameysteen Isniintii. waxay noqdeen siyaasiyiintii ugu horeysay ee la kulma Qoorqoor wax ka yar hal saac kadib markii uu Talaadadii Muqdisho u yimid in uu kala furfuro bulshada reer Muqdisho oo si weyn u garab istaagay Maxamed Xuseen Rooble. Shariif iyo Khayre waxa ay diideen in ay ka qayb galaan kulan ay xubno ka tirsan midowga musharaxiinta la yeesheen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo looga hadlayay xaaladda dalka, gaar ahaan halka salka loo dhigayo xiisada aroorsan. dadka Muqdisho ee siyaasadda u dhunduleela ayaa si weyn u hadalhaya habdhaqanka siyaasiyiintan, kuwaasi oo horey u diiday maslaxad dadka deegaanka iyo dowladnimadaba aan ficil lahayd, isla markaana ay hadda hortaagan yihiin iska qabashada Farmaajo. xubno ka tirsan dhalinyarada ololaha ee labadan mas'uul ayaa xaqiijiyay in siyaasiyiintan Farmaajo xilli habeena u geliyay muraayadaha qoraxda, isla markaana uu ku wargeliyay in Rooble uu dhisi doono Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Shariif iyo Khayre waxa ay ku doodayaan in ra'iisul wasaaruhu xooga saaro kaliya dhamaystirka doorashada, halka xubnaha kale ee mucaaradku sheegayaan in aan dalka laga qaban karin doorasho xalaal ah inta Farmaajo ku jiro villa Soomaaliya. Talaadadii xubno ka tirsan musharaxiinta waxa ay dalbadeen in Farmaajo lagula xisaabtamo isku daygii uu ku doonayay inuu awood ciidan ku qabsado hay'ado madani ah oo dastuuri ah, waxayna soo jeediyeen inuu guud ahaan baneeyo madaxtooyada. ha yeeshee madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo waraaqdaasi markii ay soo baxday kadib isugu yeeray warbaahinta kuma uusan dhawaaqin labada qodob ee ah in Farmaajo lagu maxkamadeeyo dambiga afgambiga
isla markaana lagu qasbo inuu ka guro madaxtooyada. waxa ay iska indha tirayeen saraakiisha farmaajo ka amar qaadanaya ee rasaasta la dhacaya shacabka sida nabadda u muujinaya dareenkooda ku aadan afgambigii 27 Diseembar 2021. Khayre waa shakhsiga waqtiga ugu badan ee la soo shaqeeyay farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxaana la rumaysan yahay inaysan jirin kala aragti duwanaansho buuran oo u dhaxaysa isaga iyo kooxda qadar taageerto ee madaxtooyada sharci darrada ku joogta. halka Shariif oo bilowgii iyo bartamihii sanadkan kulamo kala duwan la qaatay Fahad Yaasiin oo rumaysan yahay inuu garab ka heli doono wakiilka qadar u qaabilsan arrimaha gudaha haddii farmaajo fashilmo. guud ahaan daawadayaal waa inageynta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media aan ku leenahay YouTube-ka. haddii aad daawatay like inoo saar, subscribe inoo saar channelka fura gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faarada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.